السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي دقالي يعني وحنا كينج سفر واحد يقدر ونسان كينج سفر برو وياهي اسكسر نقاش وناقصنا هدي هالكان أي تمركي كوه رئيسي أم عاته وقوجي كعصب هالكان فضلا ولا وصل وينيه قبل أقرح بدني ويلا قرح بدن بعمشها سود وين تأمر كذا إنه قبل سن فضلا لاكسر لو داك أصحابت هذا كومنت قرح بدنك صبح أنت كدب وأنت وحنا ربنا وحجر دول استاجو قبل اللي هذا خضر سليم يسدو كله هذا عبد الرحمن وقبل أنا كان دعين ayaa waxay aroos ayay kala kiciyeen isbuucan hadda aan ku guda jirno si dhamaanaya heesta waxa markaa ida la qaadayay fanaaniin kale ay kamid yihiin ninka hadda qaba Hodan Abdiraxmaan isla markaasna ahaa ninkii hore ee Khadar Saliimo labada gabdhood ay wada dhaleen caruur waayahay qodobka dooda dhaligay ayaa waxa uu yahay gabi ahaanba gabdhaha Soomaaliyeed kadib markii muuqaalkan baraha bulshada lagu soo baahiyay afka ay guud ahaanba furteen gabdhaha Soomaaliyeed maxaa yeelay waxay ku sifaynayaan iyagoo boqolaal muuqaal ku soo baahinaya barta TikTok ay meelaha marka ay dahay ay akoonado ku leeyihiin ee social media ay iyagoo dhahaya run ahaantii waxaad noqotay Khadar Saliimo wax xuno dhintay maxaa yeelay dhiigii baa ka tagay waxaad ahayd gabar aad u kulul waxaad ahayd gabar masayr badan waxaad ahayd gabar aan markaa iyadahay dhinaceedu dhulka aanan la dhigi karin laakiin hadda barida ayaad dhulka inoogu dhufatay haddii aan nahay gabdhaha Soomaaliyeed maxay hadallada oo dhan is wada raacinayaan waxay aaminsan yihiin in Khadra ay isdhiibtay haatan isla markaana ay qoorta dhiibtay oo ay tiri walaal xaraga iigili ee ijiid sida ee yar oo markaa iyadahay guriga adiga kugu xiran qofka ay leedahayna waa Hodan ee ma ahan mursal haddaba reaction ayaan ka wada bixin doonaa ama waxaan wada daawan doonaa gabdhahan muuqaaladan ku soo wada duubay ee markaa iyada ahay u hiilinaya ee garab hile i garab oha Khadar Saliimo haddana caayo ku caynaya marka iyada ay ama waxa caay ma oran karnay waxaan dhihi karnaa ereyga Soomaaliya ku fasir karnaa waxa uu yahay caraabis way caraabinayaan way kicinayaan isla markaana waa ay dhiirigelinayaan isla markaasna qaladkeeda ay u sheegayaan oo iyagoo qalad marka iyada ay gabdho waxay u arkaan in Khadar Saliimo ay ku taagnaato waxay ahayd way leeyihiin inay ku taagnaato go'aankeedii hore laakiin qalad waxay u arkaan in ay la haysto Hodan Abdiraxmaan in Hodan Abdiraxmaan ay microphone u qabato tirada walaal ana microphone ku haynaye adigu hees in ay Hodan Abdiraxmaan habsiiso inay xambaarto inay xamadkeeda geliso waxaas oo dhan bay waxay u arkaan maangaabno ama inay isdhiibtay haddaba muuqaalada gabdhaha inta aanan daawan bal marka hore muuqaalada laga soo duubay marka iyada ah aan daawano in xafladda hoolka ay ka dhacaysi arooska iyaga kadibna waxaan wada daawan doonaa gabdhahan afka furtay isla markaana ku eedeynaya Khadar Saliimo inay tahay wax yar oo aan marka ayda dhig aan lahayn dabcan waa inta yarta ah ay microphone gacanta ku hayso Khadar Saliimo oo ay Hodanna heesayso wada heesayaan ayaa gabadha loo haystaa kaliya والله hablaha Soomaaliyeed caadi ma aha waa faar socdo halkan waxa ka cad Khadar Saliimo u soo ordaysa markay gudaha holka soo gashay dhanka ay Hodan Abdiraxmaan wali idoo laabteeda furaysa gacmaha intay kala qaaday habsiinaysa Hodan Abdiraxmaan iyada ayaa soo raashatay iyada lama raadin waana muuqaalka ugu darnaa ee marka iyada ahay ay gabdhuhu aad uga falceliyeen oo ay yiraahdeen kaalay Khadar walaal wax dhigila marka iyada ma ahan waa iyaga sida ay warka u dhigaan ama ay u arkaan Khadra iyo Hodan Abdiraxmaan baa microphone-ka naagtu qabanaysa naagta ninka ka qaadata wajibug anaga ku caynayno dheeranaya ninka u soo celi qumaye Khadar Saliimoonay naag facaaga oo maanta waxba ku dheereen ya qurux iyo sinji iyo labis iyo dhar iyo lacagba ku dheereen baasaboorkaas America bas ay ku dheertahay naya naag facaaga sam microphone-ka ugu qabatay alla Khadar Saliimoonay sharaftaada xaleeyay dhimatay alla baaye codkan xaqiiqiisa Khadar Saliimo u geey walaahi u gaariyay u geey Khadar Saliimooy hadalkayga hadal waa ku iga dambeeyay naakroy modeelan ku ah waa ku taageeri jir adeegiga kibirku kugu jira ma kugu taageeri jir laakiin xalay ma tir baad ma irbad baa soo baxday inoo maseer la dhaho na xalay maxaa khaldana Khadar Saliimooy ninkaaga ba dhidka laga masaxay khotooda ninka xididka uga masaxda garan maayo dhidka ka masaxays hadaba video walba show walba dhidka ka masaxays xalayna aad oo taagan ba dhidka ka masaxays soo xaqaldanay Khadar hadda kooba ninkii maan kala tagno naagtan show isku ballansono ay dhidka ninkii ka masaxdaan taagnaada Khadar waxba xalay khaldana wax weyn baa xalay khaldana Khadro anagoo il buuran oo ilna la ka soo baxay xataa joogi kar weyn
الله خاطر يسدني جدا أنا هذا بالله عليك والصوحة يا مدوي waxaa la yidhi nin kastoo wanaagsan xagga dambe behind his woman waayahay run ahaantii gabdhaha Soomaaliyeed oo caadi ma ahan waa garsoorayaal markaa iyaga ahay iyagu aad moodaba in shaqo loo diray lagu og yahay ay dawladdu u dirsadeen inay gacanta ku hayaan caadi ma aha waayahay kolley Khadar Saliimo waxay samaysay aniga ahaan wax aad u wanaagsan bay ahaayeen diinta islaamku waxay qabtaa 3 habeen ama 3 maalmood ka badan in aadan qof bani aadam ah aadan u uqdadoobi karin haddii kale aan xasanaadkaagu marka iyada samaawaadka aan loo qaadin sanado badan bay isku uqdadeysnaayeen haddana haddii ishiyeen weliba u muuqato heshiisku in iyadu xaggeedu ka yimid run ahaantii waxaan leeyahay walaal hambalyo waxaa tirada badan ee malaayiinta ah ee wiilal Soomaaliyeed ah kamaadan waayin ninku qalma kuma sii dheeraa karnee Khadaroy ana xaggayga waxaan ku leeyahay bilad sharaf baad ka mudan tahay hadan Cabdiraxmaan adiguna waxaan ku leeyahay wax badan marada ka dhacday haddana waxaan ku leeyahay kulli calafka sida ahaa adna waxaan ku leeyahay walaal hore u soco sidoo kale Mursal waxaan leeyahay marada ka dhacday niweyn baad ahayd haddana waxaan ku leeyahay adiguna qodhaada hore u soco gabdhaha Soomaaliyeedna waxaan leeyahay idinka vaarka tirada badan aad wadaan joojiya halkaas bareeg ku qabta war haddii halkaan soo gaarto walaal subscribe like comment halkaan waxaan kusoo gudbinaa waxyaabo aad u badan aad run ahaantii ka heli doonto oo ugu horeeyaan ku hor dhicmayne waan like garay. Assalamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.